السلام عليكم صاحبada qiimaha badan soo dhawaada inaad ku noolaato sanduuq dhexdiisa hal maalin waa arrin naxdin leh ka waran xaaladda qofkii ku noolaa 70 sano sanduuq dhexdiisa oo ku xabisana dhab ahaantii waa tijaabo adag laakiin Paul Alexander waxa uu u muuqdaa qofkii kaliya ee ka gudbay dhibaatooyinka adag gabi ahaantood waxaana uu qoray buug weyn waxaana uu ku qoray afkiisa haddaba maxay tahay sababta dhabta ay ka yeeshay inuu noqdo mid ku dhex jira sanduuq sanado badan maxaa dhacaya hadduu damco inuu ka soo baxo sanduuqa dhexdiisa daawadahayna qiimaha badan oo intaana bilaabin video like saar oo nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh mahadsanid intaana nu gudagelin videoga aan daawano oo wada dhageysano Paul Alexander asagoo ka sheekeynaya dhibaatooyinkii iyo sidii uu ku wajahay caqabadihii adkaa ee soo maray noloshiisa kuma fakarin inaan noqonayo qof curyana marka la fiiriyo noloshii aan ku noolaa iyo dhibaatooyinka adkaa aan la kulmay dhab ahaantii waa suurtagal inaad xaqiijiso shay kasta oo maskaxdaada ka dhex guuxaya marka lagu daro ficil iyo dadaal iyo halgan badan qisada Paul Alexander waxay ka mid tahay qisooyinka cajiibka ayna adag tahay dad badan inay rumaystaan xagaagii 1952 waxaa dunidu ku faafay caabuq halis ah oo dilaa oo lagu magacaabo polio sida uu koronuhu ugu faafay adduunka oo kale waxaana kor u kacay caruurta uu ku dhacay waxaana caruurta uu ku sababay inay cuuriyaamaan dhaqaatiirta caalamka waqtiga way la yaabeen oo wax sharaxaad ah maysan helin dawladda Mareykanka waxay bilowday inay xiraan meelaha lagu dabaasho shileemooyinka iyo goobaha dadweynaha iskugu yimaadaan iyo inay buufiso wadooyinka waaweyn Alexander oo ahaa cunug 6 jir ah xilligaana ku ciyaaray roobka xagaaga oo ka da'ay banaanka gurigiisa waxa uu dareemay asagoo ku ciyaaray roobka xanuun iyo qandho aad u badan gaar ahaan sanbabada heerkulkooda oo sare noqday ayuu waxa uu ku dhawaaday inay qarxaan markii aragtay hooyadiis qandhada haysatay wiilkeeda way la yaabtay waxayna gelisay guriga waxayna ku amartay inuu seexdo labadiisa waalid maysan awoodin inay isbitaal geeyaan laakiin dhakhtarka xaafadda oo aaminsan in si cad ugu dhacday cudurka poliyada waxaa buuxiyay isbitaalada Mareykanka caruurta uu cudurka poliyada ay ku dhacday waxaana fursad loo arkay in lagu daweeyo gurigiisa maalmo kadib waxaa xumaaday xaaladiisa waxaana loola cararay isbitaalka markii uu dhakhtarka arkay cunuga waxa uu hooyadiis u sheegay inuu dhintay dhakhtar kale ayaa baaray waxaanu ogaaday inuu nool yahay waxaana la geeyay qolka qaliinka waxaana lagu sameeyay qaliin dhanka sababada ah 3 maalmood kadib waxa uu ku soo baraarugay asagoo ku dhex jira sanduuqa neefta waxaana arkay caruur ku dhex jirta sanduuqa hawada qalabkan oo lagu magacaabo iron lung waa mid ka mid ah qalabka caafimaad ee loo adeegsado neefsashada ama oksijiinka qalabkan waxaa la soo saaray sanadkii 1937 Paul Alexander oo mar la weydiiyay noloshiisa waxyaabo uu ka xasuusto waxa uu yiri waxaan mar walba maqli jiray dhaqaatiirta oo ku sheekeysanaya maanta ayuu dhimanayaa uma maleynayo inuu sii noolaan doono talada marka aan maqlo aad ay ii gubi jirtay laakiin dhammaan caqabadahaas iyo dhibaatooyinka haystay Paul Alexander kamaysan hor istaagin inuu xaqiijiyo hadafyadiisii uu damacsanaa markii uu jiray da'da 21 waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee dhameeyay dugsiga sare asagoo aan imaanin iskuulka waxa uu ka qaatay shahaadada dugsiga sare kadibna waxa uu ku biiray jaamacadda Texas waxaana uu bartay kulliyadda sharciga waxaana ka qaatay shahaadada masterta waxaana noqday lawyer una jeclaa yaraantiisa inuu noqdo waxaana ku guuleystay 2 kiis oo loo dhiibay ugu dambeyntii waxa uu qoray buug weyn buugga uu ku qoray afkiisa waxaana la weydiiyay mar sababta uu qoray buugga waxa uu ku jawaabay waxaan rabaa inaan dad badan tusaale u noqdo aanan ku dhiirigeliyo ayna ka xoroobaan mumarsiyaha iyo cudurdaarka ay ku xireen naftooda ayna ka faa'iideystaan waqtigooda qisada Paul Alexander inta ay ku eg tahay insha Allah intaan ku kulmi doono muuqaalka xiisiga sida iyo